والسلام يا dhageystayaasha daawadayaasha barnaamijkan maanta lagu hayo magaaladan Kalabaydh degma ay ka tahay Sool gobolka Sool waxa isugu yimi dadkii deegaanka ahaa waxa isugu yimi dadka arintu beelay tahay wala walba meesheeda in loogu tago oo wixii ilaa hadda soo kordhayna laga wadana dadka reer Khaatumo taasaan ayaamahan bawaday waana rajaynayaa inta kalena intii aan gaari karaba inaan wada gaadho waxaan aad ugu mahadinayaa shacabka reer Kalabaydh soo dhaweynta fiican ee ay nagu soo dhaweeyeen aad iyo aad baan ugu mahadinayaa intii ka shaqaysay iyo intaanu joognayba si muxubbo badan ka muuqato noogu soo dhaweeyay waan ku mahadinayaa waxaan aad ugu mahadinayaa odayaasha uqaasha iyo culimada iyo waxgaradka dadkan magaaladan iyo beeshan ah hawsha labada maalmood ay ku jireen odayaashina waa kuwa hadlay taageerada ay taageerayaan wada hadallada iyo yoolka wada hadallada laga rabo ee beesha odayaashoodii ay hadda ka cadeynayaan waa ku soo dhaweynayaa waa ku mahadinayaa waa ku bogaadinayaa qabyana waa halkeeda hawlo badanna waa yaaliin dadkanse waxa ugu wax walba ugu mudan waa arinta nabaduna runtii si gaar ay dadkan u taabatay tobanayadii sano ee ugu dambeysay anigu caaqil Cabdikariim Axmed Salaabaan mursal ku sugan degmada Kalabaydh ka tirsan gobolka Sool waxa beesha bahar same ka tirsan beelaha gobolka Sool shiruga socday laba casho beeshu waxay qaateen inaanu u taageero siinayno madaxweynaha Ali Professor Ali Khalif Kalaydh wada hadallada nabadda ku saabsan iyo wax qaybsiga Somaliland iyo Khaatumo boqolkiiba boqol beeshu waxay qaateen inay soo dhaweysto ay taageerto wixii dhimanna insha Allah waxaan rajaynaynaa iyagana isafgarad iyo guul iyo heshiis lagu midaysan labada dhanba isla qaateen oo shacabka Somaliland iyo Khaatumo anfaca inay ku dhamaadaan oo midho wax koola ka soo baxaan baan rajaynaynaa anoo ka haraya beesha baarsame afkeeda hawshaas waanu soo dhaweynaynaa waanu taageersanahay waxaanu isla qaadanay haddaanu beeshaan nahay wada hadalladii Khaatumo iyo socday Somaliland baanu soo dhaweynaynaa si laxaad mug iyo miisaan le baanu ku soo dhaweynaynaa waxaanu ku garab taaganahay madaxweyne Ali Khalif Kalaydh waxa uu hawsha uu ku jiro uu tagay Ethiopia Djibouti Hargeysa Caynaba si mug iyo miisaan le baanu uga shaqeynaynaa maamulka uu wadaanu ka tirsanahay kalsooni buuxda aanu wada qaadano kula shaqeyna madaxweynaha arinta waa la taageeray Ali Khalif wadana taageero buuxda la siiyay intaas arintu odayaashii hore iyo xaaladda qoysku ay ku dhantahay reerku guud ahaan dawladda Somaliland ee wada hadalku noo socdo hadaan reer Khaatumo ahayn anaga dacid ba wakiil nooga wixii siyaasiyana professorka oo ah madaxweynaha Khaatumo ayaa wakiil nooga cid kale oo wakiil naga ahina ma jirto arinta iyada ah go'aanka ay beeshu ka qaadatay ayaan ka qabaa aad iyo aadna waa soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay nabad ku wada noolaanshaha iyo tafaahimka iyo wada hadallada socda aad baan ugu faraxsanahay waxa weeye nabadu cid waliba danbay u tahay Somaliland danbay u tahay Khaatumana danbay u tahay dhulbahanta guud ahaan danbay u tahay ma jeerteen dhul danbay u tahay muslimiinta oo dhan danbay u tahay Allahna waafajiyo subhanahu wa ta'ala